waxaa maanta si rasmi ah u dhaqan galay go'aankii ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo ay ururnimadii hore saaka aanu u kurgalnay habka iyo hanaanka ay u socoto wadadu iyadoo oo loo qaybiyay gaadiidleydii marayay wadada wadnaha ee caasimadda Hargeysa laba qaybood halka qaarna ay marayeen wadada wadnaha ee ku taala caasimadda Hargeysa iyadoo oo kuwii kalena loogu talagalay inay maraan wadada weyn ee dabamarta dhakhtarka weyn ee caasimadda Hargeysa sidoo kale waxa la arkay habka ay shaqadu u socoto ciidamada nabadgelyada wadooyinka Somaliland oo iyagu ku hawlana hagaajinta iyo kala hagidda saxmadda baabuurta kala duwan ee maraya wadada wadnaha ee caasimadda Hargeysa haddaba waxa aanu wax ka weydiinay taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka Jamhuuriyadda Somaliland Faysal Xiis isagoo ku sugan hawlihiisa shaqo waxa aanu noo sheegay habka iyo hanaanka ay u socoto wadadu wallahi inay dadku si fiican u soo dhaweeyeen dadku waxay u baahnayeen subxaada faraha badan leh in la yareeyo waa lagu guulaysan insha Allah kulli wixii maanta la bilaabay waan arki doonaa natiijada diilaha xitaa shaqadii nabadgelyada wadooyinka fududaanaysa heerkii nabadgelyada wadooyinka fulintiisa way yaraanaysaa wax fiican aad iyo aad u fiican waa la baranaya wixii maanta ugu horeysay idinkuna nala shaqeeya dhinaca kale waxa arintani si diiran u soo dhaweeyay shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa iyo gaadiidleyda kala duwan ee isticmaala wadadani waxaanay dhammaantood noo sheegeen in ay tallaabadan ay tahay mid aad loogu diirsaday oo ay horumar ballaaran ku gaarayso Jamhuuriyadda Somaliland shacabkani iyo gaadiidleydani mara wadada oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan u arkayaa wadadu deemanka beri maalmii hore waxa dhici jirtay in qofku 2 saacadood suuqa u sii socdo say maanta inay fududahay waad arkaysaa wadadu dadku say u marayaan ay gawaaridii badnayd ee in badan dadku ilaa waqtiyada 12 ilaa 12 shaqooyinka laga soo raaxo inay wadadu xirmi jirtay inay maanta furan tahay oo dadku si fiican u marayaan oo gawaaridii muxuu ahaa haadka isku ciiri jiray gaariga parkinga ka soo baxaya iyo kii gelayay intay isku xanibaan dabeetana gaarigii wadadii saacadan xidhnaan jirtay walaal dalkayga horta aad iyo aad buu wanaagsan marley laakiin waxa jirta gaadiidka wadada halka weylasi inay waxa loo baahan yahay si wacan u socdaan oo dadka siiyaan chance ay kaga talaabaan wadada sharci ay ku socdaan wadada laakiin qaab kale ku socodayaan marka wadadii loo baneeyay de maaha qaabkii loogu talagalay in wadada lagu maro dadkii bay jeelayaan dadkii meel ka talaaba ma hayo xukuumadda iyo wasiirka waxaan ka codsanay inuu Sacuudiga calaamadii dadku ka talaabayay de waa hawl ballaaran weeyaan oo isbedelkan waxa weyn ku timi weeyaan laakiin waxaan u baahanay wadada si loo cadeeyo in liid cad la mariyo mar hadii laba haad laga dhigay oo dhinac u socdo si baabuurtu waxa weeyaan ay waxa weeyaan aan isugu dhicin fikray waana aad bay ugu qurux badan tahay wadadani in waweyga saas laga dhigo marka ilaa intii aan soo socday New Hargeysa waxaan dareemayaa in culayska yaraaday waana talaabo loo baahnaa waan soo dhaweynaynaa go'aamada noocaas marka laga fikirayo had iyo jeer waxaad moodaa arrintan in si wacan looga fikirayo ay tahay talaabo aad iyo aad ugu qurux badan sidii baabuurtu u socotay iyo sidii traafiga ama cidhiidhiga u yareynaysa marka aad iyo aad baan soo dhaweynaa wax qabadka dawladuna aad buu u horeeyaa aad baan ugu hambalyeynaa madaxweynaha iyo sida quruxda badan ee uu dalka wuxuu qabanayo cidhiidhi bay ahayd markii labada dhinac iskaga timaado laakiin imika waxaynu salaabaynaa adduunweynihii baynu la midnay baalalin baabuurtu ay u socoto aad baan ugu hambalyeynaa dawladda wax qabad aad baan u soo dhaweynay wax qabadka xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraaye ka mid tahay wadadan oo marka la marayo waqtigu dadka kaga dhici jiray oo baabuurkaada dan leelka u martaad saacad u taagnaanaysay wadada oo maanta si sahlan aan u soo maray oo daqiiqad gudaheeda dantayada ku dhamaysanay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taraafigu bay ku maadsan yihiin waxaan leeyahay hawl qabadka madaxweynuhu qabanayo hogaaminayo oo dadkiisa iyo shaqaalihiisa ku amrayo waxaan leeyahay hambaliyo arrintani ayaa waxay noqon doontaa mid horumar iyo isbedel ballaaran oo dhinaca higsiga horumarinta caasimadaha noqon doonta haddii ay loogu talagalo amaba habkii loogu talagalay ay u socoto Khadar Maxamed Maxamuud iyo Axmed Waraan Qalile telefishin qaranka Somaliland magaalada Hargeysa